حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفسخ ذاك يدان أما وقاضي الحسن نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان وأتت شهود الوصل تشهد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ساكي بشو إسلام كو حوية كودي بشي جماد الآخر كون أفر بغل صدري سيداد ساكي وحن قادرنا عشر كي أفراد وكسب سنة علم بارستا هجري عشر كان وجدول كلية وباهن كلية قفكي يقان حساب تقيبنتا aad u sahlan tahay qofkaas waxa weeye aad u sahlan tahay inuu barto jadwalkan magaciisa waxa la yiraahdaa cumru dunya waxaan ugu bixiyay jadwalkan muddo dheer buu shaqayn karaa haddii la aqoon lahaa axadii dhulka la abuuray iyo haddii la aqoon lahaa maalinta buunka la afuufayo oo dadku baaba'ayo labadaba waa laga fiirin karaa sida aan yani magaranaysaa aan u diyaarshay inkastoo aan la aqoon axadii inta sanoo laga joogo axadii dhulka la abuuray sidoo kale aan loo aqoon maalinta buunka la afuufi doono nusuusta diiniga sida ku cad waxa weeye waa la qashay maalinta buunka la afuufayo waa tii malakul jibriil uu weydiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa tuu yiri adiga iyo anigu labadeena waxa weeye ma naqaano waxyaalaha la qashay bay ka mid tahay jadwalkan cumru dunyaha ah marka waxa weeye hijrada ayaa sal u ah hijrada wixii ka horeeyana waxa weeye waa laga fiirinayaa wixii ka dambeeyana waa laga fiirinayaa hijrada soo socotana waa laga fiirinayaa saas u shaqeynaya sidaas ma garanaysaa waa sida aan niyasnahay inuu magaranaysaa muxuu ahaa uu shaqeeyo hase ahaatee waxaa jira marka cilmi baaris la sameynayo cilmi baaristaas qofka sameynaya waa inuu leeyahay himad sare waa inuu leeyahay yacni shaygaas ku talagelkiisu yani inuu fiicnaado ayuu ku talagelayaa in magaranaysaa su-aalo badan oo magaranaysaa dadku ay isweydiiyaan uu ka jawaabo baa loogu talagelayaa marka saas oo kale ayaan ugu talagelayaa laakiin cilmi baaristaani ma aha wax aniga ugu eg waxaa la rabaa jiilasha soo socda in ay sii wadaan cilmi baaristan sababtu waa maxay waxaa laga heli karaa khalad baa laga heli karaa anigu sidii aan ugu talagalay si aan ahayn ayuu kusoo bixi karaa waxaa laga yaabaa khaladka in laga helo adigoo dhowr boqol oo sano 500 oo sano 800 oo sano in laga helaa laga yaabaa marka waqtigaas waqti annagoo dhan aan joogno maaha jiilkan ugu xiga ma joogaan kuwan ugu xiga si xiga ma joogaan adigu jiilalka dambe ayaa loogu talagelayaa inay jiilba jiil uga tago jiilba jiil u sharxo sida ay ahayd yani loogu talagalay in loo sharxo marka khalad waxaa ka heli kara jiilasha dambe ayaa khalad ka heli kara tusaale ahaan taariikhdan hadda la yiraahdo miilaadiga waxaa la soo bilaabay yani laba jeer oo wax laga bedelay markii hore qaybtii hore waxa la yiraahdaa Julian baa la yiraahdaa Julian Caesar baa sameeyay wuxuuna sameeyay taariikhdu markay ahayd nabi ciise ka hor 42 sano ayuu sameeyay wuxuu u talagalay qaabka uu xisaabshay 22 bisha la yiraahdo Maarso in ay joogto qorraxdu inay dul joogto dhul baraha ayuu ugu talagalay taariikhdu markay maraysay 1582 markay maraysay ayaa haddana Gregorian waa ninka hadda ku magacaaban taariikhda miilaadiga ayaa haddana wax ka bedelay Gregorian boobkii ka horeeyay ayaa waqtigiisa waxa la helay
taariikhdan inay khaldan tahay. waxaa la arkay meeshii laga rabay 21 Maarso qorraxdu inay timaado dhulbaraha baa qorraxdii waxay timid dhulbaraha waxay timid 21 Maarso laga rabay waxay timid 11 Maarso. halkaa maxaa soo baxay khalad 11 beriye oo qorraxdii soo hormaray. laakiin khaladka waxaa la saarayaa qorraxda la saari maayo. waxaa la saarayaa bini aadamku xisaabtu sameeyay ayaa khaladka la saarayaa. qorraxdan sida ilaahay uu talagalay bay ku socotaa, bishu sida ilaahay uu talagalay bay ku socdaan, ayaga waxba khalad la saari maayo. markay arkeen in ma garanaysaa muxuu ahaa 10 beri oo khalad ay ku jirto, waxba lagama bedelin boobkii ka horeeyay waqtigiisii Gregorian. markii la soo gaaray taariikhdii Gregorian wuxuu yiri anaa wax ka bedelaya, kaliya wuxuu sameeyay 1582 Oktoobar oo ah 4 ah oo beri ay noqon lahayd 5 ayuu wuxuu yiri beri waa in loo qaataa. amar bixiyay wuxuu yiri beri waa in loo qaataa 15 waa in loo qaataa. amarku wuxuu bixinayaa maalintii ay ahayd 4 oo beri ay noqon lahayd 5 wuxuu yiri beri waa in loo qaataa 15 waa in loo qaataa si uu u saxo khaladkii dhacay, si ma garanaysaa qorraxdu ay ugu soo aado 21 Maarso ay ugu soo aado muxuu ahaa dhulbaraha. saasoo kale waxba kama u bedelin marka khaladkii wixii keenay sababtii keentay waxba kama u bedelin. Julian Caesar ayaa wuxuu sameeyay taariikh xisaabtan ah 365.25 365.25 ayaa magaranaysaa ayuu ku soo socday. isagu inuu keenay inay ka horeysay ma sheegi karo, laakiin saasuu ku soo waday. marka xisaabta laftiga 365.25 ayaa khaladka keentay oo khaladku ku dhex jira. marka Gregorian markii uu 10 beri ku daray oo yiri beri ha loo qaato 5 iyo 10 ha loo qaato, khaladka sababtii keenaysay waxba kama bedelin. khaladkaasna waxaa lagu sheegaa in 128 sano ay timaado hal maalin oo khalad ah. 128 sano inay timaado hal maalin oo khalad ah. marka midda laftigeeda xal bay u heleen oo waxay yiraahdeen 400 oo sano 300 oo sano kamid ah boqolkii sanaba maalin baa la saxayaa. tusaale markaan ka bixiyo waxa weeye 1700 maalin baa la saxay, 1800 maalin baa la saxay, 1900 maalin baa la saxay, 2000 lama saxin. marka halkaas waa maxay? waa 400 oo sano oo 300 boqol loo saxay. boqol waa la saxay 1900 iyo 1700 waa la saxay, 1800 waa la saxay, 1900 waa la saxay, laakiin 2000 baa la saxin. sidaas oo kale buugaagtooda waxaa ku qoran waxaa la saxi doonaa 2100, waxaa la saxi doonaa 2200, waxaa la saxi doonaa 2300, 2400 waa la deyn doonaa. saas qorshe ah ayay magaranaysaa bay sii dejiyeen. qorshahaasna waxay uga tagayaan yani hadda yani qof cimrigiisu intaa gaaraya ma jiro, waxa weeye waa ballan jiilka jiil isu gudbaysa weeye. sidaas oo kale cumrudiyuhu wuxuu u baahan yahay in la sameeyo ballan jiilka jiil ah oo khaladka soo bixi doono, hadduu khalad soo bixi doono sii waardiyeeya. mataalba waxaan sameeyey jadwallo 235 jadwal ah. waa 235 jadwal oo soo laalaabanaya. waxa weeye 235 kaas jadwal haddaan diiwaan gasho isagaas unbaa isku soo laalaabanaya. marka jadwaladaas mid ka mid ah baa waxaa la rabaa waardiye in laga hayo. jadwalkaas waxa weeye waa jadwalka 95aad. jadwalka 95aad jadwalkaas markaan magaranaysaa muxuu ahaa aan dejinayay 95
waxa weeye bishiisii aan cirka ka fiirshay oo aan diiwaan gashay anoo dabaq fuushan oo si fiican u fiirshay baan arki waayay laakiin dad joogay meelo kale oo tiro badan oo aan ku kalsoonahay ayaa soo sheegay waxay yidhaahdeen bishii annagaa istusnay annagaa wada aragnay dadkuna waxay ahaayeen dad aan ku kalsoonahay bay ahaayeen marka ishayda keliya kuma kalsooni anigu laakiin waxa weeye dadka yacni qeybta casriga ah oo hadda sacuudiga la haysta oo kale kuwaas oo kale xoogaa waa ka leexleexdaa laakiin bisha qaabkii hore loo fiirin jiray qaabkaasaan u diiwaan gashaa qaabkii hore dadka yacni muxuu ahaa ku socda ayaan weydiiyaa bisha kuwa hadday ay sheegaan waa diiwaan gashaa laakiin cid kale hadday ay sheegto ma diiwaan gasho saa darteed bishaas waxaa laga soo sheegay meel la yidhaahdo Balebusle baa laga soo sheegay dad tiro badan baa istusay anoo saas la sheegay baa haddana waxaa la yidhi magaalada Gaalkacyo dad badan baa istusay oo soo sheegay saasaan ku diiwaan gashaa jadwalka markaa hadda waxaa ii haray diiwaangelintiisa weli waa ii socdaa 76 bilood baa hadda ii haray inaan diiwaan gasho oo weli ma dhammaan yacni ka faa'iidaysigiisii hadda weli ma dhammaan oo waa wadaa jadwalkan wuxuu noqonayaa horumar taariikhda hijriga ah oo la hormariyey oo sahlanaan doona oo cilmihana aan baran karno oo qof kastoo xoogaa yar oo xisaabta qaybinta yaqaana oo baran karo jadwalkan saasuu noqon doonaa insha allah haddaan isweydiino maxaa loogu dhaqmi waayey taariikhda hijriga dadka markaa weydiisid waxay ku leeyihiin taariikhdan hijriga ah laguma ballami karo sababtu waa maxay taariikhdan hijriga ah lama yaqaan hadda bisha aan ku jirno ma 30 bay ku dhamaan doontaa mise 29 bay ku dhamaan doontaa marka saas darteed laguma ballami karo waad aragtay hadda shirkadka waaweyn xisaabaadkooda waxay ku habeeyaan taariikhdan miilaadiga ah sababtu waxay ku leeyihiin taariikhdan miilaadiga ah waa wax la yaqaan inkastoo khalad lagu dhacay oo rugni dhan oo islaami ah khalad lagu dhacay oo taariikhda islaamka meeshii zakada lagu bixin lahaa hadda zakada waxay ku bixiyaan shirkadka waaweyn taariikhdan ma garanaysaa muxuu ahaa masiixiga bay ku bixiyaan على أي حال waxaa loo baahan yahay taariikhdan hijriga ah in meelo badan ma garanaysaa muxuu ahaa sida mobilada ay u shubeen taariikhda miilaadiga in loogu soo shubo in ma garanaysaa muxuu ahaa kuwig buugga muxuu ahaa barnaamijkan xisaabaadka oo shirkadku ay ku xisaabtamaan oo kale in lagu soo shubo oo ayada lagu xisaabtamo in ayada mushaaraadka lagu bixiyo in ayada ma garanaysaa lagu ballamo waxa weeye taariikhdan markaan qur-aanka akhriyayno aayado badan ayaa waxay ka hadlayaan taariikhdan hijriga ah aad bay uga hadlayaan markaad fiirisid arkaanul islaam saddex ka mid ah waxay ku socdaan taariikhda islaamka goormaa la xajiyaa waxay ku socotaa taariikhda islaamka ku socotaa goormaa la soomaa waa rugni dhan oo islaami ah waxay ku socotaa taariikhdan islaamiga ah goormaa zakada la bixiyaa ayadu waxa weeye oday jabsatay waxayna la gashay taariikhda ma garanaysaa muxuu ahaa masiixiga ayayna la gashay laakiin saddexdaa rugniba waxay ku dhisan yihiin taariikhda hijriga ah waxa weeye zaka bixintu waxay leedahay wax la yiraahdo maalintii aad heshid nisaab xoolahaagu ay zaka gooyaan waxaa loo baahan yahay maalintaas inaad diiwaan gashatid waa tiraahdaa maalintaas hantideedu waxay noqotay nisaab ayay gaadhay waa diiwaan gashatay maalintaas maalinteeda kale haddii xoolahaas ay isdhimin xoolahaas hadday isdhimaan waa buraysaan laakiin xoolahaas hadday isdhimin waxa weeye bishaas bisheeda kale maalintaas maalinteeda kale xoolahaaga zaka laga rabaa waana taariikhda islaamka ku dhisan tahay laakiin ma noqon karto nisaab waxaan helay 5 abriil baan helay 5 abriil oo kale ayay nisaab noqonaysaa ma dhici karto taas waa khalad weeye marka jadwalkaas ayaan sharxayaa insha Allah hadeer waxa weeye niyada ha loo furo waa aad u sahlan tahay waa qaybta qofka yaqaan xisaabta qaybta qofka yaqaan waa aad u sahlan tahay
marka niyadda ha loo furo haddaan bilaabinaa. haddaba kalandarku wuxuu u samaysan yahay sida tan. waxa weeye kalandarkan wuxuu ka kooban yahay saa halkaa uga jeedid 235 warqadood buu ka kooban yahay. 235taas warqadood warqad kastaba waxay u diyaarsan tahay qaabkaas u diyaarsan tahay. qaabkaas ay u jeedaan ayay u diyaarsan tahay warqad kastaba. marka warqadan koowaad ama jadwalkan koowaad waxa weeye 235 waxa weeye tii koowaad weeye 235 tii koowaad weeye. halkan waxa uga jeedaan ayaamihii baa halkan baad ku aragtaan. jadwalka markaan bilowno halkaa wuxuu ka bilaabanayaa muxaramtii koowaad baa halkan ka bilaabanaya. muxaramtii koowaad sanadka koowaadna waa kaa muxaramna wataa. casharadii hore waxaan kusoo qaadanay 235taas bilood in ay magaranaysaa 19 sano oo shamsi ah inay la mid tahay 19 sano iyo 7 bilood oo hijri ah. warqadan marka waxaa lagu soo laabanayaa shacbaan sanadka 20aad baa lagu soo laabanayaa. marka labadaaba mid kastaba waxa ku qoran ayaantay bilaabmayso. muxaram sanadkii koowaad waxa halkan ku qoran inay bilaabantay maalin Arbaca ah. shacbaan sanadka 20aadna inay bilaabanayso maalin Sabtida. sidoo kale marka lagu sii daro 19 sano iyo 7 bilood marka lagu sii daro waxa la gaarayaa Rabiicul Awwal sanadka 4aad oo bilaabanaya maalin Talaada. waxa ku sii xiga sidoo kale marka lagu sii daro 19 sano iyo 7 bilood Shawaal sanadka 59aad oo bilaabanaya maalin Jimcaha. sidaas loo soconaya ilaa laga gaaro Rajab sanadka 118. sadarkaas markuu noo dhamaado waxa lagu soo laabanaya sadarka ku xiga Safar sanadka 138 oo isla bilaabanaya Arbaco. wuxuu la mid yahay Muxaram sanadka koowaad oo kale buu la mid yahay. halkan marka waxaad ku arkaysaa jadwalkan oo dhan intaas taxan oo dhan kulligood waxay bilaabanayaan Arbaca ka dhaxaysa. intaas oo dhanba Arbaca ka dhaxaysa. intaas oo dhanna waxa ka dhaxaysa Sabti baa ka dhaxaysa. intaas oo dhanna waxa ka dhaxaysa Talaada ka dhaxaysa. sidaas ku soconaya. marka magaciina waa kan taqwiim umru dunya lil hijriya. halkaas uu noogu qoran yahay. marka مثالبا سندك 1626 جماد الآخر وحو بلابان يا أحد أصبرك حرير واحد لهذا أيامه ساعة تحنا بين لهذا أحد بلابان يا كل جود محي كل أديهين كل جود وحي كل أديهين كوبي كل أديهين كو الله وصدح وتاريخ عادي هيد وهجري هيد ويه مركز سؤال ويدي له هذا waxaa laga rabaa Ramadaan 627 halkan ka doonaysaa Ramadaan 627 Ramadaan 627 wata. marka waxaa leedahay Ramadaan 627 waxay bilaabantay maalin Isniina ayay bilaabantay. jadwalka marka waxa weeye saas u soo laabanaya haddii alla idmo wuxuu noqonayaa jadwal aad u saxsan. hadda waxaan u wareegaynaa warqadda u dambaysa. warqadda u dambaysa waa kan 235 warqadood tii 235aad weeye. ayaduna saasi u shaqaynaysaa. waxa weeye taariikhda u dambaysa waxay noqonaysaa Dulxijja eber sanadkii eber. sababtu eber u noqdana insha Allah casharkaas waxa weeye xisaab ahaan baan ku heli doonaa. waxa weeye eberkaas wuxuu taagan yahay 1645 buu u taagan yahay. xisaab ahaan saas u taagan yahay. suu maarta xisaab ahaan saan u galin haddaan galinaa xisaab ahaan suu yahay.
inta aan ku jiray hawshan waxay soo martay sheeko cajiib badan waqtigaas oo taa ka soo sheekeeyay waxay ahayd 1974 ardadii waxaan ka mid ahaa farsoomaaliga ololihii horumarinta reer miyiga ee farsoomaaliga bari jirtay reer baadiyaha waxaan ahaa fasalka 6aad baan ahaa adigu hawshan 11 sano oo aan raadinayay xawaaraha dayaxa 11 sano waxaan raadinayay xawaaraha dayaxa laakiin waxaan helay faa'iido kale waxaan helay bishu sida qorraxda kale inay marna u degdegto marna ay u soo taagnaato oo xawaaraheedu uusan ahayn wax fixid ah wax yani muxuu ahaa tiro isla eg inuusan ahayn waxaan ku ogaaday 11 sano baa hawshan ku ogaaday khasaaro maaha 11 sano marka waxaan soo gaaray 1985 anigoo saas helay haddana waxaan helay qaabka maanta aan ku shaqeynayo baan helay inaan ku raadsho wax qaabkaas aan cagta saaray raadinta halkaas markaan muxuu ahaa aan cagta saaray 19 sano oo milaadi ah ayaa waxaan ku helay xawaaraha dayax markaan helayo markaas waxaan soo gaaray taariikhda markay joogto 2004 baa waxaan helay xawaarihii dayax qaybta ii hadhay marka waan aqaanaa inta ay ku dhammaan doonto waxay ku dhammaan doontaa 19 sano oo kale oo ka bilaabantay 2004 taasaan bilaabay haddana waxa weeye waa diiwaangelin 235 bilood diiwaangelinteed baa markaa ay bilaabatay hawshaa marka intaan ku jiray anoo 10 sano wada diiwaangelintaas baan waxaan dhageystay muxaadaro sheekh Mustafa Haruun oo ka hadlayo ma loo dabaaldegi karaa idaha Kirishtaanka sida Happy New Year oo kale sida Nataalaha oo kale sida Easter oo kale ma loo dabaaldegi karaa adigu sheekadaas wuxuu soo dhex gashay Greegii hore inay heleen waxa hadda anigu aan helay 19 sano oo milaadi ah in ay la mid tahay 19 sano iyo 7 bilood oo qamari ah marka meesha qamariga isagu ka oran lahaa 19 sano iyo 7 bilood buu wuxuu yiri 235 bilood 235 bilood iyo waxa isla eg 19 sano iyo 7 bilood marka 19 sano oo milaadiga ah iyo 19 sano iyo 7 bilood oo qamari ah ama si kale u dhaho 235 bilood oo qamari ah intaba waxay la mid yihiin 6940 maalmood 6940 maalmood Greegii hore ayaa helay waxay heleen taariikhdu markay ahayd 4320 way waxay heleen raaliga hada 432 sano nabi ciise ka hor marka waxay u bixiyeen Metonic cycle Metonic waxaan malanayaa inuu yahay Metonic waxaan malanayaa inuu yahay ninkii hawshan helay cycle-na wuxuu ka hadlayaa isku soo noqoshada 235 bilood ay isku soo laabanayso baa cycle-kii uu yahay Metonic cycle saas buu ugu bixiyay bal fiir halkan anu Metonic cycle waka Metonic cycle waka haddii aad gashid Metonic cycle haddaad Google haddaad weydiisid wuxuu ku soo saarayaa sheekadana oo dhan buu ku soo saarayaa inkastoo sheekada tan uu la aaday meel kale inkastoo sheekada tan uu la aaday isagu meel kale laakiin anigu sheekada tan jadwalkan hadda aan sharaxayo ayaan magaranaysaa muxuu ahaa baan helay waxaan leeyahay jadwalkaanu wuxuu noqonayaa dhamaystirkii Metonic cycle inta kaliya ayaa ka maqnayd Metonic cycle oo in lagu kabo ay ku fiicnaan lahayd laakiin ayagu ama ku kabtaan ama iska daayaan laakiin anigu waxaan wala baxay taqwiim umru dunya lil hijriya waxay noqonaysaa
shaxdan ama taqwiimkan aan dhicitaanka lahayn oo isku soo laalaabanaya wuxuu noqon doonaa taqwiim islaami ah isagu wuxuu ugu talagalay isagaa yaqaan laakiin anigu waxaan ugu talagalay inuu noqdo taqwiim islaami ah oo aan dhicitaan lahayn oo sidaan uga soo sheekeeyey aada yacni magaranaysaa looga soo faa'iidaysan doono markii aan maqlay waa lagaaga horreeyey xoogaa waa isciil kaambiye oo waxaan noqday qof la dhacay oo kale laakiin waxaan isku qanciyey meteoric cycle wuxuu ku noqonayaa markhaati waa faa'iido waxba aha isciil kaambin hawshaan waxay ku noqonaysaa markhaati bay ku noqonaysaa awal dadka inaan ka dhaadhiciyo dhibaata igu noqon lahayd laakiin markaan idhaahdo wixii markhaati baan u hayaayo waatan markaan idhaahdo waxa weeye dad badan oo iga didi lahaa ayaa muxuu ahaa usoo leexanaya oo magaranaysaa bal wax ka fiirinaya oo ku qancaya laakiin haddaan idhaahdo waxaan keligay baa magaranaysaa muxuu ahaa bilaabay haddaan idhaahdo hadda waxa weeye intii aan soo waday cilmi baaristaas baa qof kasta warkaygu inuu run yahay iyo inuu been yahay bay ku qaadanaysaa waana dhibaato laakiin qofka markuu galo internetka markuu galo markhaati buu ii noqonaysaa meteoric cycle-kaas marka casharkeena waan sii wadaynaa matalan waxaa nala weydiiyey taariikhdu hadday gaadho 10 milyan iyo 1 taariikhdu markay gaadho 10 milyan 100 milyan baan oran lahaa 100 milyan iyo 1 markay gaadho taariikhdu markay gaadho 100 milyan iyo 1 ma laga fiirin karaa cumru dunya taqwiim cumru dunya ma laga fiirin karaa haa waa laga fiirin karaa waxa weeye waxaan isticmaalaynaa waxa la yidhaahdo tiro togan xisaabta markii la ag dhigo ku dar marka la ag dhigo waxaa la yidhahdaa tiro togan tiradaas togan waxaan ka wadaa waa hijradii wixii ka dambeeyey baan ka wadaa waa hijradii wax ka dambeeyey waa taariikh soo socota micnaha ayadaas marka su-aal kastoo nala weydiiyo waxaan u qaybinaynaa taariikhdii aan soo sheegnay oo ahayd 1645 1645 baan u qaybinaynaa marka waxba yaana isku dhiban aan soo fududeyno waxay helaysaa 60,000 waxay helaysaa 60,790 bay u helaysaa marka la isku dhufto intaas iyo intaas waxaa soo baxaysa 99 milyan 99 milyan 999 999 550 baa soo haraysa waxaan nidhi taariikh soo socota hadday tahay maxaan u bixinay tiro togan baan u bixinay middaan waxaan leenahay waa 10 tahay marka la rabo in la kala gooyo waa 10 tahay markaasaa waxaan leenahay waxaa soo baxaya 451 baa soo haraysa oo tiro togana marka su-aashiina la weydiiyey oo la yidhi ma laga heli karaa 100 milyan iyo 1 markii taariikhdu gaadho cumru dunya ma laga heli karaa ilaa 20 u bixinay cumru dunya 20 u bixinay haa waa laga heli karaa aan ka fiirina marka taariikhaas nala weydiiyey waxay la mid tahay taariikhdu cumru dunyaha 451 aan ka fiirino marka jadwalkeeni 451 wakaa 451 bil nalama weydiin jamaacadul uula nalama weydiin laakiin sanad baa nala weydiiyey sanadka 451 buu la mid yahay 100 milyan iyo 1 markii taariikhdu gaadho kaasay la mid tahay jamaacadul awalkaas waxay bilaaban doontaa maalin isniina haddii rabbi idmo maalin isniina waa taan idin sheegay marka hawshaas waxaa la rabaa jiilasha dambe inay sax tahay in kale inay fiirshaan
marka 400 iyo konton iyo kow jamaadul uula waxay la mid tahay maalintaas isniinta ayay la mid tahay su'aalkan la weydiiyay marka tan hadda aan qornay waxay ahayd taariikh soo socota bay ahayd hadda waxaan gelaynaa taariikh la soo dhaafay hijradu markay ahayd 1 milyan hijradu markay ahayd 100 milyan ma oran lahaa 100 milyan ka hor meeshii awal aan ka dhigi jirnay lagu tiro togan meeshaan ka dhigi jirnay hadda waxaan ka dhigaynaa tiro taban tirada taban waxaan ka wadnaa tiradaas taban waxaan ka wadnaa waa hijrada intiisan bilaaban ka hor waa tiro taban bay noqonaysaa hijrada markay bilaabatana maxaan ka dhignay yani soos iyo wixii ka dambeeya waxaan ka dhignay tiro togan baan ka dhignay waa tiro taban waa hijrada ka hor saasoo kale waxaan ugu qaybinaynaa tirada ayada ahayd laakiin kor waa inay martaa tiradii tognayd oo aan ka jar lahayn waa inay kor martaa sidaa leh sidoo kale waxaad u qaybaysaa 1645 sidoo kale waa inaad u qaybaysaa su'aal kastoo lagu weydiiyo waxaad magaranaysaa muxuu u qaybanaysaa 1645 baad u qaybanaysaa waaye tirada marka noo soo bixi doonta markaan isku dhufanno waxa weeye waa inay noqotaa tiro togan waana inay ka badataa 100 milyan tiro ka badan waa inay noqotaa si ay uga badato marka tiradii markii hore aan saarnay waa inaan xabad ku darnaa awal maxay ahayd 60790 bay noo ahayd waxaan ka dhigaynaa 60791 waxaan ka dhigaynaa 60790 kowgaasaan ku darno marka awal waxay 90 bay ahayd kowgaas marka waxaan ka rabnaa tiradan dambe oo soo maganaysaa maxaa ka kala goyn doono waa inay badataa tirada togan mar kastaba inay badataa loo baahan yahay waayo marka aan isku dhufano marka maxaa noo soo baxaya waxaa noo soo baxaya 100 milyan iyo 195 baa noo soo baxaya haddii marka sida caadiga ahayd aan ugu qaybin lahayn oo midaas aan xabad ku darayn waxa weeye xisaabteennii khalad bay noqon lahayd yani danta aan leenahay khalad bay noqon lahayd marka maxaa noo soo haraya waxaa noo soo haraya 1195 baa noo soo haraya marka waxaan leenahay 1 milyan oo ka horay oo hijrada ka hor ahayd markaan rabno inaan ka fiirino waxaan ku khasbannahay tirada inaan ka dhigno tiro taban waa inaan ka dhignaa halkaas milyan boqolkaas milyan waa inaan ka dhignaa tiro taban markaan aan saa u shaqayno ma aha xisaab la arki jiray ma aha xisaabtan waa xisaab ay ugu khasabtay jadwalkan ka shaqayntiisa markaas waxa weeye boqolka milyan wuxuu kala mid noqon doonaa jadwalkeena cumrudunyaha 1195 oo kula mid yahay waaya aan ka fiirina marka 1195 wakaan 1195 taas wuxuu kula mid yahay 100 milyan hijrada ka hor ayuu adoo fiirshay oo kale uu kula mid yahay marka hadda halkan waa maxay waa rajab haddii la weydiin lahaa rajab maxay noqon lahayd maalin arbacaa bay soo dhalatay maalin arbacaa bay soo dhalatay cumru dunya wakaa labada qaybood si looga shaqayn lahaa wakaa hal xisaab baa noo hadhay halkaa xisaab waxa weeye waxaana la weydiiyey 13,000 waxaana la weydiiyey 13,160 maxaan idhi mar hadday tahay taariikh soo socota
mar hadday tahay taariikh soo socota waa inaan halkaan dhignaa waa inaan ka dhignaa tira togan waa inaan ka dhignaa waana inaan u qaybinaa 1600 iyo 40 iyo 5 waa inaan u qaybinaa 1600 iyo 45 waa inaan u qaybinaa waayahay kor waxaa fuulaya 8 baa fuulaya kor waxaa fuulaya 8 markaan ku dhufo 1645 waxay noqonaysaa isla tirada tii aan qayban lahayn waxay noqonaysaa 13160 maxaa soo haraya waxaa soo haraya eber baa noo soo haraya waxaa noo soo haray eber baa noo soo haray waayo marka ebertaas waxaan ka fiirinaa markii aan jadwalkeena fiirino ebertii aan la yaabanayn ayaan hadda fiirinaynaa ebertii aan la yaabanayn wataa maxaan la weydiiyay 13160 dhulxija kun iyo 13160 waxay kula mid tahay ebertaas mataalba waxaan la weydiiyay dhulxijahaasu wuxuu bilaabmay maalin talaada waxaa la rabaa ku-aadka kow baa la rabaa يوم أيام ترى واحد هيد ثلاثة الحجة صدق طبعا كون يبغى لحدا محين نغطي مالين وحين نغطي ثلاثة وين يكون أداة حريقي أنا صار شيء وين يكون أداة وأيامي ساعة تحنا وين يكون أداة وياه مركا قيمة لفتي هذا كسر الله مرة أنا جيني هذه مليون يكون ومحمد صاصع تواني جيني تاريخ ذا كر نوفو شيء نمر كان كر نوفو لي واحد كفر كرنا نشدول كان عمر الدنيا وحو شقي أو شهر أسكت على لابتي لحدا كون تضاو بقول يستعاشن شهر بصول لابتي أو شهر كي كستبق وياهي بقول يوه يعني كون يلح بقول أفرتينشن شهر كي كستبق وياهي كون لح بقول أفرتينشن أنتاس أو شهر بصول لابتي مركب كي لحدا كون تضاو بقول يستعاشن يكواد بنا هذا واحد كجرنا أفر بقول يكون تيكوب عن كجرنا كيها لحدا كون تضاو بقول يستعاشن يكواد بواح بابلامي أو واحد كجرنا أفر بقول يكون تيكوب وياه كنا ما حنكون فسرنا واساس كلاوي كاسم بحويه مركان دب الله بنو واحد دب الله بنينا لحدا كون تضاو بقول يستعاشن يكوب عن دب الله بنينا كي سياشن يلابد أو من إنتاسه بقول لها أو من إنتاسه كي سياشن يلابد لحظة كون تضابط سياشن يلابد أيام واحد كجرنا كون بقول يسياشن يشن بان كجرنا وياه تيو دبي وحويه سداد شهر بوشقي كان كان عمر دنياها أو شهر كستبق وياهي كل لح بقول أفرتن يشن وانا اسكو dhamaatay wax dambe baaqaya malaha eber marka wax alla wixii eber ku soo haro ama ha noqoto hijradii muxuu ahaa wixii ka horeeyay ama ha noqoto hijrada wixii ka dambeeya maxay noqonaysaa ebertaas waa ebertii aan la yaabanayn haddana helay fasiraadeeda haddana helay taasi ku noqonaya dhulxija waxaad helaysaa muharram eber safar eber kulli waad helaysaa rabiul awwal eber rabiul aakhir eber kulli waad helaysaa هذا لكن تدور كنا محن كويس أنا ذو الحجة إير مركا هذا بحر كينيا تدور كاس قفكي كعنت كلها إنه استعمال كره تدور كانوا وحويه ولا بقول يصدر يشنبق ويه لا بقول يصدر يشتها بق مركا وحنا غنيا بوق كاس قفكي كعنت كلها وحو كهليا تاريخ الله تاريخ ما وجب هذا إن كستو هذا هذا تضباطن يلح بلاد إن فيرشوا ديوان قشوا ولا هوش مرمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.